السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qiimaha iyo qaayaha lagu soo dhawaada Higgs Technology anigana waxaan ahay Maxamed Xaris Maxamed maanta hadduu aan leeyahay muuqaalkan waxaa iga jawaabi doonaa laba su'aal oo laga soo weydiiyay muuqaal ah hore u sameynay labada su'aal mid ka mid ah waxay tahay sida aan ku helo iconiska aan isticmaalo midda labaadna waxay tahay sida loo isticmaalo mockup-ka midda koowaad ayaan ku hormaraynaa iconada sidoodaba waxaan ka helaa barta Google-ka hadda halkan ku qoro call icons waxa isoo baxaya boqolaal icon balse muhiimadda ayaa ah sida color-ka looga bedelo sida dhaqso ah adoo Photoshop isticmaalaynin dhanka Illustrator-ka marka laga hadlayo markaad qaato kan oo kale call-kan oo kale ayaa qaatay aqoonsadina inaan call-kan oo kale qaato waa icon waa degsan karaa marka ku dhufto waa degsanayaa save ayaa leeyahay meesha aan dhiganayo ayaan dhiganayaa save markaa dhaho markuu ii soo dego kan waxaa muhiim ah inaan ayadna la soo baxo oo aan kacsado Adobe Illustrator-kayga ayaan kacinayaa waxaa kaloo ogaataan wax walba ayaa ku dhigin karnaa sida hadda haddaan dhaho delivery icon haddaan dhaho waxaa ii soo baxaya waxyaabaadka delivery-ga sida gaarigan oo kale ma gaarigan oo kale ma wadadan oo kale waxaas oo dhan ayaa ii soo baxaya marka halkan ayaa laga keenaa laakiin sida loogu isticmaalaa marka la joogo Adobe Illustrator-kayga ayaa soo kicinayaa markaan Adobe Illustrator-kayga soo kiciyo waxaan leeyahay file kadibna waxaan leeyahay open waxaan soo gelinayaa filekii aan soo degsaday ee ahaa icon kadib open halkan markuu ii keeno waxaa la ekeysiinayaa meesha intay leeg tahay waxaan ku sameynayaa marka hadda halkan wax aan color-ka bedeli karo ma jirto markaan inta joogo waxaan ku sameynayaa marka waxaa ku sameynayaa waxa la dhaho image trace oo ah sawirkan hadda gacanta ayaa waa kana click ayaa ku siiyay image trace ayaa waxaan ka fiirinayaa halka kore ee menu bar-ka ku aadan ayaa ka fiirinayaa image trace wuxuu leeyahay dhowr nooc haddii color iyo wax ku jira high low ama sida caadi waxyaabo badan uu leeyahay laakiin midka aniga wax iska dooranaya image trace markuu sida shaqadaas qabto haddana waxaan leeyahay extend halkan markaa imaado right click aan dhaho group aan dhaho qaybahan waxaa jirta qayb cad ayaa meeshan ku jirto hadda kor u qaado kaasa qayb cad ayaa ku jirtay delete ayaa iska leeyahay waxa ku soo haray oo kaliya qaybta madow hadda qaybta madow color-ka rabaan ka dhigi karaa ayaan ka dhigi karaa sida aragtida ayaa color-ka aga bedeli kartaa marka sidaas ayaa looga bedelaa haddaad doontid image trace ayaa lagu sameeyaa haddaad rabtid inaad icon-ka ka bedeshid color-ka nooc rabo ha lahaado icon-ka su-aasha koowaad halkaas ayaan naga bixinaa markaan su-aasha labaad usoo noqdo su-aasha labaad waxay ku saabsaneyd sida loo isticmaalo mockup-ka sidiisaba waxaa waaye in design-ka markaad sameysid wixii aa ugu tala gashay ka dhigtid haddii boor aa ugu tala gashay sida boorka oo kale aa ka dhigtid haddii aa ugu tala gashay sida halkan aga jeedaan hadda muuqaalkan waxaa ka muuqdo chocolate package-keeda oo design lagu sameeyey halkan waxaa ka muuqdo boor yar oo ay dhahaan flyer camal ah amase boorarka jidadka lagu dhejiyo kale ka muuqdo marka saas oo kale inaad u isticmaashid ayaa lahaa mockup so mockup-ka intee laga helaa internet-ka laga helaa ayagoo free ah isagoo lacag ah sida adiga kugu xiran tahay haddii mataqaanaa lacag haysatid oo mockup-yada isticmaalaysid adiga kugu jirtaa haddii laakiin waxbarasho u jiraysid aw isticmaal inta badan waxaa la isticmaalaa ku free website ugu badan oo aan isticmaalo waxaa lahaa freepik ayaa lahaa website-ka inta badan waxaa ka helaa design badan laga helaa wixii adiga ka raadin kartid ka faa'iidin kartid hadda waxaan ka raadinayaa chocolate mockup ayaan ka raadinayaa marka meeshan waa ka heli karaa marka ay nooca laga helaa noocii adiga ka heli kartid waa kana package waaye chocolate package waaye kan chocolate package waaye kan chocolate package waa mockup baa lahaa design-ka markaad sameysid for example aniga waxaa sameeyay design
design-ka sameeyay waa kana waxaan ku furayaa Photoshop ama si Photoshop ku furo caadi u furayaa design-kana sameeyay design-kana waxaa rabaa inuu ka soo muuqdo mock-up af chocolate aan u soo muuqdo mock-up-ka ka soo degsaday internet-ka marka ka soo degsado oo isoo tago mock-up waa kana chocolate package mock-up ku qoran midkaas koowaad isticmaalayaa double click Photoshop ahaan waaye double click ayaa ku dhufanaya markaas wuxuu isku furayaa Photoshop automatically markuu saan Photoshop isku soo furo maxaa ku sameynayaa yani marka meeqa soo furmatay waxaa soo furmatay 1 iyo 2 iyo 3 yani waa 3 chocolate soo furmatay macnaha aniga mid kamid ah u baahanaa saddexdooda u baahan 3 color ay kala tahay macnaha waxaa tagayaa qaybta gacantaada midig xigta ama qaybta bidix ee Photoshop-ka waxaa ka fiirinaya meeshan ee folderadan groupskan chocolate yellow midka yellow iska dila iska dhaha chocolate bubble kaas aan rabaa green kan oo iska daleedaya ma u baahan so marka bubbles aan rabo marka kuwaas iska daleedaan waxaa arkaysaa meeshan dhowr waxyaabo waa arkaysaa kan uu koreey waa kii yellowga waa raacinaya waa daleedaya kan ku xigo waa bubble waa rabaa kan green kan waa iska daleedaya kan marka ugu sareeyo calaamadaas icon-kaas leh ayaan ku dhufanayaa laba mar click kadib wuxuu ii furayaa page cusub oo saan page-kan cusub markuu ii furo asaga ayaa imaanaya layout-ka tagaya meesha haday tahay idin tilmaamayo kala midigta kadib isha ayaa ka qaadaya hide ina saaraya meeshaas isha ah ayaa ku dhufanaya hide ina ka qaadaya ama si dhanba daleeda dhihi karaa dal ayaa taaban karaa kadib waxaan sameynayaa file ayaan leeyahay replace ayaan leeyahay kadib meesha oo file-ka oo ii yaalaya taga design-kayga hore markaan tago design-kayga hore ku dhufsanaya double click inta ayuu kusoo furmayaa design-kii hore marka hadduu isku cabir ahayna wuu la ekaanaya haddii kalena adaa kaaga baahnaanaya inaad isku fit aga dhigtid okay markaa dhahdid sidaan uu kusoo baxay kadib waxaa leedahay meeshaas cancel-ka ayaa tagaysaa kor layer-kan dhanaad file-ka dhanaa cancelaysaa wuxuu ku leeyahay ma save garayaa save dhahaalada kadib automatically wuxuu ku furmaa package-ka look soo package-ka uu furma sidaas ayuu package-ka uu soo furmayaa marka taasna waxay tahay sida loo isticmaalo mock-up-ka asagoo ayu nooca isticmaali kartaa asagoo book asagoo wax walba book cover up lagu isticmaalaa mock-up wuxuu leeyahay everything waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu wax ka caawiyay haddii uu ku caawiyay waxaana lagaga baahan yahay in dadka la share gareyso like dhahdo subscribe-na aad dhahdo channel-keena si aan noogu dhiirigelisid inaan casharo badan soo sameeyno